waxaa kaloo systemkani uu noo sahlaya uu leeyahay qayb kale oo la yidhaahdo customer care support oo macnaheedu uu yahay shirkadda dahabshiil oo horeba looga bartay adeegyo hufan oo lagu raali gelinayo maantana waxay diyaarinaysaa macaamiisha dahab adeeg taageero customer support 24 saacadood inaad heli karto meel kasta iyo goob kasta oo joogto iyadoo macnaheedu taas laga ka saarto lacagna aad ka diri karto waxa kale oo isticmaalaya nidaamkan dahab qaybihiisa kale partner companies baa kamid ah oo ah shirkadaha isticmaalaya adeega waa adeeg loogu talagalay shirkadaha waaweyn iyo hay'adaha caalamiga ah inay isticmaalaan qaabka ay isticmaalayaanna أو شركة كنعسية واحد استعمالها ميرشن أو آخر كنعسي إن معاميشة مهرده أي كوي من كلام إذا كبدأ على هذا أديكه هذا كنعسي يجوا حساب هذا تهمشير نقوش من كلام معاقيه أي كوي بيمهم الكودة وعقلوا لي هاي بيرون سلف يو هيدا عالمية هو محلية يو هذا أنثورية هاي واحد استعمال كلام بيرون سلف سيستم كإذا أو سامحيا إن مشاروي كودة شغالوا هذا كوبيحيان كوبيحين كلام يبغى أمورنا يا نظام كاسي ده هم فرق كريه وحيدورنا يا سيستم كا وحينقلنا يا قيمة الناس كأولياء هاي هم فرق يا أمور يا ناس كمرعية التلفونات أسي وحاو سيستم كنوسا معيا هيدا أسي مشاروي كوبيحيا هم فرق إن كليك سيان تبتنا وجود رقمان ومرضى استعمالية وحكلوش تقريبا إلى هذا بول بيمنت هيدا عالمية هي UN International Organizations وحي استعمال كلام قيمة طلعها بولك بيمنت أو دائما كده يجوا استعمالان يلا أو شركته الصينية يسوي ويب سايت انترفيس حفيز ولا بس شغالي يسوي فوق وانا يو أديك يجوا حرفوه ده شوجا لمنتسي كومباينز شركتها حوالا كو استعمال كلام بحتة حوالا ده هي النوع هذا كلا دوان العجان وعقلوا شركة أو سيستم كانوا ينوسع على إلى استعماله قريب لا يراعوا بيل بيمنت انترفيس ومعناه إنه هي شركتها أديك بحثه وحيكون رسم كنا سيستم كبيلاش مع بيشوده وأوسع على إن يلعبوا وصو حرادان سيفودود يجوا أو حسابته ده تقال إذا بشيلنا سيفودود وشون كنا والشركتها هذه شر استعمالها بيلاشة وحيسوق جلسة قيمه مشاريع كلا بحناية ذهب كتبنا أن استعماله حسابته إنه وفر عند أبشيل بنك استمرك إنه سمعين كرنا إنه روح كحول له لعك هذا إنه سيدو كله وحين كهل كرنا كاشش كي لعجها إنه بهنا هاي ضمان جوابها أي كفرين سمت اللي ده أبشيل جروب وإنه كذا كرنا وحلا وحي لعجها إنه بهنا سيدو كله خاصة مجالات إنه بربرة وحين كهل كرنا جواب فربضن ولعجها بحياة ومهردها هو وين مجالاته أي كوتشلان وحين كذا كرنا كاشش كإنه بهنا هاي وحين الكيف سكرنا وحياة إنه بهنا هاي gabagabadii iyo gunaanadkii mudanayaal iyo marweyn systemkan ama qorshahan cusub ee ay shirkadda dahabshiil group hadda ay soo kordhisay oo ah in uu yahay nidaamkii dahab waa fursad dahabiya oo runtii u soo xarootay dhammaan macaamiisheeda sharafta badan ee waqtiga badan nala soo shaqaynaysay oo u sahli doonta inay ku isticmaalaan lacagahooda kuna kaydsadaan kuna diri karaan system secure ah oo runtii aad iyo aad loo adkeeyay shirkadaha soo diyaarinay ay yihiin shirkadaha dunida ugu qaalisan qaybaha technology-ga intaasi waxa aan ku soo afbeeraynaa ama aan ku soo gabagabaynaynaa qaybihii iyo warbixintii iyo hordhacyadii aynu ugu talagalnay inaynu ku daafurno dahab inta dabadeed waxaynu sii gudbi doonaa aniga ayaa iska sii xiriirsan doona oo iska sii wadi doona waxa aynu u dhiibi doonaa hadalka oo haatan aynu u dhiibi doonaa qof kamida macaamiisha isticmaalay nidaamkan dahab ku isticmaalay xisaabtiisa kala baxay ka diray ku bixiyay oo ay isaguna ina siin doona in yar oo faahfaahin ah oo wixii yar oo kooban oo ku hadli doona afka macaamiisha waxaanu yeeri doonaa Mustafa Xuseen dahab adeegan dahab waxa shirkadu ay bilowday oo ay ka bilowday Somaliland bilowgii 2014 adeegan waxa haatan isticmaala in ka badan 100,000 oo qof ama waxaan oran karnaa 100,000 oo meheradood oo ka jira wadanka Somaliland kuwaas oo isticmaala siyaabo kala gedisan oo isticmaala qaybo kala duwan oo aynu sharaxi doono hadii Ilaahay ka dhigo tiknoolajiyada oo ku shaqeynayo nidaamkan ama systemkan dahabka adeegan dahabka wuxuu ku dhisan yahay system casri ah oo ah secure waqtigan kuna haboon
wax lagu kaydsado mobile ama systemka loo isticmaalo mobile bank oo run ahaantii ay ka soo shaqeeyeen hay'adaha ama shirkadaha ugu waaweyn dunida ee isticmaala technology-gan dunidu maanta ay adeegsanayso. qaybaha kala duwan ee uu shaqeeyo nidaamkan adeega e-dahabka waxa uu ka kooban yahay qaybo kala ah general users, agent, merchants, macaamiisha oo isticmaala subscribers, iyo partner companies oo isticmaalayaasha adeega bixinta mushaharooyinka payroll service, iyo qaybo kala ah lacagaha bulk payments. subscriber-ka haddii aynu sharaxno macnaha subscriber-ku waa kaarkan yar ee aynu gashano telefoonka. qaababka uu shaqeeyo kow waxa uu shaqeeyaa lacag dirid oo ah mobile to mobile ama la yaqaano B2B afka lagu yaqaano technology-gu uu adeegsado. sidoo kale kaarkani wuxuu ku shaqeeyaa qaybo ah ku iibsashada badeecadaha ganacsiga, adeegyada merchant payment. waxaa kaloo shaqeeya qaabka la yidhaahdo biil bixinta, inaad ku bixiso biilka adeegyada waxbarashada, caafimaadka, leydhka, biyaha, nooc kasta oo adeega bulshadu ay u baahan tahay. nidaamkani waxa uu kuu sahlayaa inaad samayso xawaalad international remittance, in xawaaladaha lagugu soo diri karo mobilkaaga dhammaan caalamka, iyo inaad mobilkaaga ka dari karto xawaalad adiga oo jooga gurigaaga, una diri karto shirkad, qof iyo cid kale. sidoo kale kaarkaaga waxaad ka isticmaali kartaa xisaabtaada akoonka kaaga furan dahabshiil account. waxaad mobilkaaga lacag kala bixi kartaa kuna dhigi kartaa xisaabtaada dahabshiil account. sidoo kale waxa aad lacag u dhigi kartaa qof kale adigoo isticmaalaya kaarka Samtel. waxaad isticmaali kartaa inaad soo dhex gasho systemka secure-ka ah ee dahabshiil bank. waxaad ka saari kartaa lacag, waxaad u diri kartaa cid kale oo kamida dadka macaamiisha ah. khaasatan waliba systemkaasi kuma xidhna qof kasta oo kamida bulshada reer Somaliland inay yeeshaan e-dahab, laakiin waa inay haystaan telefoon ah Samtel oo kaliya. waxaad markaa awoodi kartaa xisaabaha uga furan dahabshiil bank inaad u transfer garayso lacag intaad ka saarto akoonkaaga oo aad u diri karto qofka meel fog jooga ama gobol kale jooga. sidoo kale waxaad ka diri kartaa xaddiga lacageed ee aad u baahan tahay kaarkaasi kugu shaqaynaya e-dahab kuma khasbi doonto inaad dirto $2,000 oo kaliya, laakiin waxaad diri doontaa hadba adeega intii aad doorato 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ilaa la gaadho 100,000. maxaa yeelay systemka ayaa wuxuu yahay system secure. 3 jeer ilaa 4 jeer ayuu jeegaraynaya xisaabta ka hor inta aanay gelin hawada. kadib markaad aqbasho waxa uu u dirayaa ciddii aad dalbatay adeega isaga ah. systemkaasi wuxuu kuu sahlayaa kaarkaasi Samtel loo isticmaalaya maraya nidaamka e-dahab inaad ka hesho e-dahabkaasi top up oo ah ku hadalka telefoonka, inaad macaamilka telefonkaaga lacag kaga shubato cid kalena aad uga diri karto. sallallahu alayhi wasallam. marka hore horta dhammaantiin martida waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بعد السلام والتحية horta waa soo dhaweynaynaa. awal badhow jeebaan kullay ciidan ka mid ahay soo dhaweynay wax qabadkayga markii bilowga telefoonada hadday tahay Hargeysa waan joogay runtii la qaybinay ugu horeysay markii furitaankii awdal kale laga furiyay dahabshiil oo soo dhaweyntii aan ku jiray. maantana waa in nasiibanaad in aan e-dahab aan halkan gobolka Saaxil ku soo dhaweeyay. waxaan leeyahay shirkadda soo dhawaada. runtii aad baan idinku hambalyeynaya. waa technology horumar leh, waa technology fudaydinaysa adeegyo fara badan oo imika anoo kale haddii aan doono inaan yar gaaro meesha waxaa laga yaabaa taamka meel iga dhaco intaan xabiiska fadhiyo. laakiin imika markaan e-dahabkaasoo kale aan helayo waxa weeyaan dee way fudud oo halkayga adeega aan kaga qabsanaya instiin aan u nili lahaa waqtigii baa kaa dhacay. markaa waa idinku hambalyeynaya. runtii soo dhawaadaan leeyahay reer Berbera iyo guud ahaan gobolka Saaxil waxaan leeyahay dee waa adeeg yar oo inoo fudaydinaya. haddaad xoolo la joogto, haddaad macdan qodanayso, badda haddaad dhex joogto, beeraley haddaad tahay iyo guri haddaad joogtaba inaad ku adeegato. markaa waxaan idleeyahay hala qaato. waxaan leeyahay idinkana soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhaweynayna e-dahab baan soo dhaweynaynaa. kambaniga cusub shaqada cusub la soo baxay baan soo dhaweynaynaa.
waxaan bulshada u sheegaynaa inaanu cidna caqabad ku ahayn cidna aanu dhibaato ku ahayn sidaa waxaan u caddaynayaa markii wii dahab soo baxay baan maalin maalmaha ka mida waxaan weydiiyey ninka iibka u qaabilsan telesom ka waran maan ku ori wuxuu yihi somaliland way naga wada badan tahay taa macnaheedu waxa weeyaan telesom mar haddaanay ka xumeen oo aanay ahayn saadkii baa laygu soo doontay riixa sidii aanay ahayn telesom ma soo dhaweysa waxaan leenahay la soo dhaweeyo somaliland way baahan tahay manfaca waxaynu ka aragnay saadkeenu ka aragnay goob kasta iyo meel kasta iyo goor kastaba waa hanti aad jeeb ku sidato aad leedahay marka waxaan leeyahay la soo dhaweeyo reer berbera waxaan leeyahay isagu dhowr xaaladood baa malaha leeyahay inkastoo iyaba salaama baan leeyihiin isla dhowr xaaladood buu leeyahay marna waxaa u diraysaa koonkaagi marna waad la baxaysaa in lacagtaada ku kayso wasalaamu calaykum مشروعا برنامج كلي ذهب intiisii badneed ama daafurkiisii waa la sameeyey waxa kaliya oo horeyn inuu soo dhaweyno oo hambalyeeno oo inaguna aan isticmaalno waanu hambalyeynaa waanu isticmaalaynaa waanu tijaabinaynaa bal isticmaalkeeda kullu imka waxba ka sheegi mayna waxa la soo baxdo maynu ku abaal marin doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh